إلى بامبالينا مانتي بريتبا وناكي إلى بامبالينا مانتي بريتبا وناكي وانا نغنوشان فبلكي بلاشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان السلام يا أمة الصوماليين. أنا أقول الله مجاعة قبل كولورادو ومانتا بقاشي وحكرت كي هلك كسوجيهين حن نصيب نوعه إن مانتا يماتين مدح سرع أو ضرب مريكن كالصعدة إن يسوق جارين مجرد دنفر إنه الصعدة عبد الخالق أو كم مدح الصومالي ده يكون نورث أمريكا isagoo gudoomiyaha jaaliyadda Minnesota isla markaana wakiilka ururka ONLF madaxa jaaliyadaha kontonka state Mareykanka runtii waxaan jecelahay nasiib baan u helay waxa uuna markii koobaad u yimid magaalada Denver isagoo rabo bulshada Soomaaliyeed inuu la qaybsado wax socod sida arrimaha geeska Afrika ay isu bedelayaan aad baan ugu faraxsanahay garabkiisa waxaa taagan mudane Cabdinaasir Gaani oo isaguna maartay kamid ah madaxda waa wakiilka arrimaha Soomaaliya ururka ONLF oo isagoo Mareykanka jooga waa markii saddexaad ama afraad uu yimaado Denver runtii howlo fara badan ayaa ka socda aad baan ugu faraxsanahay dhowr kalmadood oo waxay maanta uga dhigan tahay booqashadooda Denver ayaan madaxda weydiin doonaa marka ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynayaa mudane Cabdilkhaalid ku soo dhawow maxay kaaga dhigan tahay inaan shaah maanta Denver aad soo booqatay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سؤال دعوتي Denver عشان أوصل لهذا الأساتين والعياشي وقاش هلك ورجوله هذا المفروض الأساتين سيد رئيس الوزراء الوزير وأنا كفر أحسن الرئاسي invitation الله في السنة وسلوي الله وسلوي الوزير هذه waxaan ku celinayaa mudane Cabdinaasir oo isagu runtii markii koobaad aysan ahayn Cabdinaasir oo maanta mar labaad afraad baad timid Denver bulshadii reer Denver Colorado oo martiqaad buuxa aad ka hesheen maxay kaaga dhigan tahay farxad iyo sharaf bay noo tahay inaan markii afraad waliba anigu aan imaado Denver Colorado oo aan shaqo u nimaadno iyo ummadda Soomaaliyeed daraheeda maantana waxaan u nimid xafladda soo dhaweynta madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Professor mudane Xasan Sheekh Maxamuud inaan kala qayb galno xafladda Denver Colorado ay diyaarinayso oo ay ka soo qayb galayaan madax badan oo Soomaaliyeed iyo dhammaan bulshaweynta kala duwan ee Denver Colorado inaan anaguna la qaybsano farxaddaas oo kala qayb galno infatiskaas aad iyo aad bay sharaf noogu tahay waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo Denver Colorado oo sidoodaba Soomaalidu firqada ay tahay aan ahayn hal mid mucaarad iyo muxaafid weligoodba isku duuban infatis kasta haddii masaajid la dhisi haddii muxuu ahaa qof musharax yimaado haddii ummadda Soomaaliya wax loo qabanayo gebi ahaanba hal kaafar ورما توقع من كم غير ورما مدوبة وحاوية دنفر وحال وية أنا قلنا إن نبغى هاي قريب كنا قلنا ما أنت هذه في الحلو هذه أتوقع ما سنت بدنا عبد الناصر بدنا عبد الخالق هذه عن سؤال كلا عن كل اليوم عبد الخالق ما أنت بعد سعد الله هذه بعد مريض كل بيحن يصير نوام حتى صلى الله عليه واشنطن وكدوين يهمت كانوا waxaad kala qayb galaysaa farxadda dadka Soomaaliyeed oo soo dhaweynta madaxweynaha waxaan arkaynay xafladaha Soomaalida inaad aad uga dhex muuqateen oo cid kasta madaxweyne kasta aad soo dhaweynayseen maxay sababta aad intaas oo kiiloomitir aad u soo jarteen inaad madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed soo dhaweyseen maxay tahay nabadda Soomaaliya inaad qayb ka noqoto ayaad maxay tahay maarta arrinta juudka inta alle aad ku bixinaysaan runtii waxa ugu weyn horta halkan ay keenay xaqliyeenta iyo soo dhaweynta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ereygiisa halqabsiga Soomaaliya heshiisa adduunyadana heshiis lahaa ereygaas ayaa laga gadmay run ahaantii ONLFna dee waxay u taagan tahay mar walba ummad Soomaali oo midaysan meel kasta ay joogtaba ay maaragtay horumarkeeda ay ka shaqayso waxaan dhiirigelinaynaa waa intaa ujeedada meesha waxaa weeyaan
in ummadda Soomaaliyeed ay midowdo u midowdo danteeda waliba danta meel kasta ay joogto maantana ay haysato fursad runtii oo ah madaxweyne maaragtay waa arag oo laba jeer madaxweyne soo noqday markii waagiisii horena waxa uu ka khaldamay sixi kara wixii dadkii ka dambeeyay ee khaldayna sixi kara waxa u sii dheer waxaa la socdo mujtamacii mucaaradka intiisa badnaan jiray waa la socdo marka fursad ay haysataa dowladdan mustaqbal fiicanna waa noo muuqdaa runtii haddii lala shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed waxaan qabsanaynaa haddaan aan u baahday magaca in lala shaqeeyo madaxweynaha fursad la siiyo mucaaradnimada dhaqso iska bilaabato la joojiyo waxyaalaha barnaamijyada suuqa lagu dhigo isbeddelada lagu qorayo in la joojiyo bal horta in marka hore fursad la siiyo madaxweynaha odayaasha iyo odayaasha iyo waasiyada iyo siyaasiyiintana waxaa loo baahan yahay iyagana inay bal xoogaa israakiyaan madaxweynaha ay gar istaagaan saasaana u nimid inaan xoojino xafladdan qiimaha badan ee madaxweynaha qabatay maasanta hal kelmad haddii aan kugu celiyo maxaad faraysaa madaxweynaha xasan sheekh maxaad fariin halkan xafladda insha allahu tacaala wixii tala iyo tusaale ah ayaan u diyaarinay oo u sheegi doonaa waana salaamayna ugu dambeyn waxaan maraynaa su-aalihii yaraa aan rabnay inaan mujtamaca maaragtay aad u gudbisaan inaad socdaalka aad soo qaadaan oo xafladdaas aad dabaaldega ummadda Soomaaliyeed soo dhaweyn aad madaxweyne ummadda Soomaaliyeed la doortay oo cusub aad ku bixisaan maxay uga dhigan tahay ummadda Soomaaliyeed iyo adiga aad baad mahadsan tahay waxay nooga dhigan tahay baahi weyn baan u qabnaa dowlad baahi weyn baan u qabnaa nabadgelyo baahi weyn baan u qabnaa dib u dhiska Soomaaliya Soomaali baa leh Soomaali baa leh waanan dareemaynay si kastaba ha u kacagufta ee marka ugu dambeysa in ay si dimuqraadi ah oo federaalism ah nabadgelyo ah oo waxa inaga xumaaday oo dhan aynu hagaajin karno inaynu Afrika ku dhaafi karno waad ogtihiin East Africa hadda waxaan isleeyahay Tanzania iyo Uganda aynu soo dhow innagaa number 1 ah burburka iyo halkii laga tago isbeddelka iyo dimuqraadiyadda iyo isjacaylka iyo waddan intaa burbursanaa haddana dhaqaalihiisa communicationkiisa dimuqraadiyaddiisa miidiyihiisa yacni dowladahan deriska ah runtii kun jeer baynu ka fiican marka waxaa weeye inaan xoojinno waan ku qasbannahay dantannadana weeyaan qof kasta oo Soomaaliya dantiisa weeye Hargeysa hadday degan tahay waa danteenna Jigjiga hadday nabad tahay waa danteenna muqdisho hadday nabad tahay waa danteenna Gaarisa hadday يعني مدة الصومالية واسمه دوي وشيكاغا هذا مالي مارك حماته ده وحمانينا بدي وده عفوا قطر that's why أنا مرول بانو أنا شعر الله هنا نحكينه إن ماذا وده شركة هاي سواء كمشرة وحلا وحي بعتين وحليو سيدا بروفيسور مشاكي سي نبدأ هاي عقلة قري وحللين دولة الشيء شغال الشيء عينا وحنا إنه قبل كريم warlorna wuxuu keeni karaa iyo qabiil iyo xabad sida daraadeed arbacana ay Soomaaliya heshiisa xilligii madaxweynaha adduunka heshiisa aad iyo aad baad maasan tahay waxaan rabaa inaan ku wareejiyo mudane Cumar Sawje mudane Cumar Sawje oo runtii dadka madaxda ah ee gobolka Colorado ku nool horeyna uu ahaa musharax madaxweyne oo jagada madaxweynaha hore ugu cararay isugu sharaxay runtiina ay ka mid tahay tan iyo intii xukuumadii isbeddelahayay isku dayay inuu dadka mideeyo horeyna u soo dhaweeyay arrimaha ka qabsama Colorado-na la'aantii aysan qabsoomin ayaan maaragta qaanaayay maadaama uu ka mid yahay madaxda gobolka Colorado inaan laba kelmadood ka dhahdo dadka wafuudda ah imaanaya ma markii ugu horeysay Cumar ee sidan oo kale uu la kulmo maxay gobolkan Colorado Denver dadka imaanaya iyo madaxda ay kaaga dhigan tahay mudane Cumar بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرة هوري فرحان لي بنوت هاي أنا وكم إذا قلت جا قبضة حفلة مدحبيني حسن شيخ محمود يضو أنا هاي مركب كوباد قدام هاي الدبر وهاي مركب لباد وأنا هالكن حفلة بلارن قبلنا قلت أنا رجوي كفر إنه كان سامح بينه إنه يسبدل ضبع وكان ذلك يهرمر marka maanta marka laakiin ujeedada halkaan u nimid waxa weeye soo dhaweynta madaxda on alaf
gudoomiye Khalid iyo gudoomiye Gani oo runtii aan ku soo dhaweynayno gobolkan dhammaan anoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed ee Denver Colorado si ay nagala qayb qaataan xafladan ballaaran aan maaragtay aan ugu talagalnay inaan ku soo dhaweyno kuna taageerno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka waxaan leeyahay gudoomiyaha soo dhawaada gacanta ku soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay inaad ugu soo dhawaataan Colorado aad iyo aad baa mahadsantihiin haddii aan mudana hal kelmad laba kelmadood kugu dib kugu celiyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo mujtamaca Soomaaliyeed maadaama madaxweyne cusub markii labaadna ay tahay xafladiisa aad gobolkan ka qaban qaabiso maxaad hawada u marinaysaa u diraysaa oo jeclaan lahayd inaad Xasan Sheekh Maxamuud aad taladiisa aad talaad ka ugu gudbinaysaa halkan media ما كل ده حبنا سبان شغلنا هنا نوحي ومكرنا سطلا موجود بتطلع لكن كل يومين بدو من نسوي حواليه ونين ويارجع وإكسبيرنسا ومكرنا سان اشتهار تشانسو هلي مرلباتنا حتى تشانسو هلي مركو واحد تشيننا كنا بيجي مكرنا سان بلقادي سي وأولريدي وطلبتي بلقادي وهكذا ده كم تاي سكيورتي كده كم هذا challenge بدل كوريا عارين إيسي أنا معها marka waayarnimadii uu tii hore ka qaaday iyo qabyadii wuxuu yiri awl sala socotaan waqtigii hore qabyo in la dhameystiro weey marka qabyadii uu dhameystiri doonaa meel fiican baan ka rajaynaynaa inuu maaragtay qabyada dhameystiro intaas aan kulliyan soo dhaweeyay assalaamu calaykum hal baan adeer class ummadda Soomaaliyeed maxaad u rajaynaysaa maxaad faraysaa ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa kale raadaba maxaad maaragtay aad faraysaa bismillaah wax fiican baan farayaa madaxda nootay si fiican baan u salaamayn waan soo dhaweynaynaa Soomaalina iyada oo midaysan iyo wax madaxweynuhu yidhi intaaba waan soo dhaweynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh معاوية أو كم إذا ضياشة يعني إن شاء الله إسمها حال لبا سنينا waxa ummadda Soomaaliyeed u rajaynayo iyo waxa loo kalmadayno ka dhaw insha Allah waqashadan aan soo dhaweynayno madaxda bismillaahir rahmaanir rahiim wala soo dhaweynayna insha Allah haddana waxaan sameeynaa insha Allah aad iyo aad baad u salaamantiin dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxa aad ka daawan doontaan maalmaha soo socda warbaahinta qorraxay online iyo afmeer iyo media-haba waad kala socon doontaan insha Allah xafladuna biri ay dhacaysaa madaxda mar labaad baan leeyahay soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh